بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة دين با قد قالي قري با قد دين قالي اسكدب وريقيو هبلي صدور حولي دقنك السياسة ديت الصومالي دوكا qodobka intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa inta aan garanayo iyo inta ay taariikhdu ii sheegtay Soomaalidu ma laha dhaqan dowladnimo balse waxay leedahay dhaqan qabali ah oo ka xoog badan diintii iyo dowladnimadii iyo wadaniyadii mayasir dadka noocaan ahay markaa dowlad ehel uma aha Soomaalina ehel uma aha dowladnimada qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa bisha Juun waxaa laga sugayaa maamul goboleedyada oo aan Puntland ku jirin golihii deegaanka ma qabsoobayo shir baa la isugu iman madaxweyne xasan oday xasan misanad ku darsada oran doona oo maxay ku farayaan waa diidayaan maxaa yeelay waa qabaayil maamul samaystay nin waliba 5 sannadood buu ku dhifsanaya ilaan adiguba waa adiga baarlamaankii 4 cutub ee heshiiska lagu ahaa barsaday annagu markaa waxayaga annagaa u madax bannaan halkaa ceebka eeg waa iska daba wareegii dee aan sheegay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa taariikhdu waa in wax laga bartaa sinaariyadan hadda uu wado xasan sheekh waa sinaariyadii uu shalay diidanaa dowladdii ka horreysay kaga horyimi isagoo u cuskanayay war nala hadla isagoo u cuskanayay maamul goboleedyadii bay ignore garaysay isagoo cuskanayay waxba mukaa inaguma soo kordhin hal abuur cusub lama uu iman waa waddadii uu diidanaa buu ku socdaa ee qodxayaha lahayd ee uu sheegayay ila kiniibadiisi waa duuban yihiin taasna وعبدو قلد الحساب بابا جيم نوم تاني قدم كان انتصر كنا فيها الحقيقة صومالو شل اسمها مسني ما انت رويبك السيدرتي سيسو آمني دون ترى ما قال maxaa yeelay wax yar baa isu hayay wixii yaraa fantashiru bay noqdeen markaa waxaa caddaanaysaa inaynaan dowladnimada u bislayn dowladnimana aynaan rabin waddadii dowladnimadana inaynaan hayn maxaa yeelay reer guuraa baynu nahay reer guuraa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa beesha lixaad oo idinku aad u taqaanay beesha caalamka waan akhriyay qur-aankeedii wada ogol kelmaddaas ayaa nuxurkoo dhammi ku jiray wada ogol waxaydnaan isla ogolayn ma taageeri karin mushkiladda Soomaalidana anoo soo sheegay waxa u sii dheer
burburkan ay ku jirto saddex mushkiladood. mid waa taa beesha lixaad, mid waa taa dowladda markaa jirta, midina waa maamul goboleedyada. isku soo duub system aynaan qaadi karayn oo aynaan ehel u ahayn oo federaal lagu sheego oo fadare mar lagu sheego oo ayaynu isku raray oo laynoo soo dhiibay oo Kenya laynooga soo dhiibay. subxaanaka yaa caday ma laha dadku fiisha fog iyo aragti fog ma laha. weli kuwii inoo soo dhiibay baa gacantaynagula jira. qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. waxaan sugaa waa juun iyo wixii ka dambeeya. الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.